ودوهي وأكو سلام يا إدريس وأكو سلام يا ونبت أو ما شاء الله أو horta waxaan ka xumahay caawa inaan meeshaan ku keeno meel aad u qalanta ma ahan laakiin maadaama wiilkaagii la qabsaday wiilkaagii ina cabdi yuusuf maxamed shardi caamir baa la qabsaday maalin baa hadda koor fiidiyo hadda koor sheegayo reer buu u danaaninayo reer buu islahaa soomaalidani maadaama ay cunsuriyeenayso dareensiinay soomaalidu mid tahay markaa wuxuu yidhi Idris gabooyaan ahay anigu markaa gabooyaan ahay macnaha waxaan ka waday dadka un baa rabay inaan wax fahansiiyo oo gabooyadu ay yihiin Soomaali oo Islaam yihiin canda daahir calisow hadda ma caaynayo maadaama adigu aad saaran tahay ma caaynayo awoogeeyo aqyaar ma tahay oo fanaan Soomaaliyeeda shaashada si fiican loo garaaco marka ma caaynayo daahir calisow inay dhahaan baa siyaasadii waxaan isku qabsanay sool iyo sanaag iyo caayan ka socotay wuxuu yiri marka haddaadan taageeraynin oo aadan ka soo horjeesanayn dadka meesha degan نصب متهيد هبرجدر متهيد يعني وحاتها إن متجانا حتى قبيل كما ديبان كو أفلقادي وحجري متجان بعدها وهذا من ديبان وكلوا بهوية وارق محمد قرقارته مركا أول بالهذا أنا قاعد أقول داي أنا قلت كلام يدرسوه هرتا داير على سو وأنا نادرة ساسن كلياي وسكالور أتيال ليرا لكن أنا قاعد اللي جرّوا إن عدايو أوجا أنا هاي وأقول لي عبد يوسف محمد شرطي عامر عبد يوسف محمد علي أباها أنا سلال محمد شرطي أنا أوجا رنت أنا وعلى هذا يوسف محمد شرطي عبد يوسف وأباها عبد يوسف محمد شرطي عامر أو كم قاعد سولي نيناس أب يقري سولي عامر ربي waxaa kaloo shaki keenaya salaadil baraadinta uu raadiyey aniga yaan ahay cadday shaki bay keenaysaa shaki weyn bay keenaysaa waxaa kaloo ceeb ah inuu xitaa iska ignore garaya loo u dhaantay dee intuu raadin lahaa anu hadda hadii la yidhahdo ma abahay u raadinayna waxyaabaha keenaya mataqaanaa waxyaabaha keenaya shakiga weyn ee aniga markaan fiiriyay aan ka dhex arka waxaa kamid ah diyaano kasta waxay leedahay walaalkay baa dhalay ma leedahay haa dheh haddana waxay leedahay markay la sheegsanaysa habar yar asaga wuxuu hooyay waa saleebaan markay hadlayso waxay leedahay walaashay baa dhashay haddana habar yar asaga wuxuu hooyay gabadh saleebaan waa هلا ديانو وافترون يا fiiri marka ninka hadda hadii ragna ma kaftami karo waxaa isku kaftami kari bari remember also worry horo dun ay banaha gabooyana din ma dhibaan banaha din gabdhaha ay ma guursanayaan din waa la yaqta hore din waxa soo dhaxgan ka aadi yani telefoon ku soo harta habar gidin aan Saleymaan iyo Sacad ku jirin maahi baa dhaanta ceerka aan tiradiis waxba tirimayso tayo ma laha quality adduunka macna isku dhaafay quality baa la isku dhaafay quality iyo quantity yaa fiican quality baa fiican runta idin sheegaya anigu waxa weeye kama qabiilada halka naga dhig Idris Bebe horta waa laga shakhsiyad fiican waa laga shakhsiyad badan yahay waxa weeye Idris Bebe wuxuu halkaas la marayo oo la hayhaabayo waa masiix wardaahir calisow aniga nin abgaala oo iga afdheer oo iga laandheeraysan oo iga kalsooni badan oo waxa weeye iga karbaash badan wallahi bil abgaal laga soo heli mayo anigu waa is ogahay Idris iyo daahir Idrisna midaan leeyahay daahirna midaan leeyahay haddaan Idris ku hormaro Idrisow walaalow haddaad tahay nin habar gidar dhalad ahna midaan ku leeyahay haddaad tahay nin aanan habar gidar dhalad ahayn midaan ku leeyahay haddaad tahay nin habar gidar dhalad ah qofka habar gidarta dhaladka waxaa jiro ficil aan loo sheegin laakiin oo u dhashabo haddii lagu dhaho qofkaas ama qoftaas heblaay ama hebel waa habar gidar inuu xumaan iyo dagaal inuu ka dabaraadi iska dhaafay meeshaas uga haraa inuu wanaajiyo oo xitaa wuxuu haysto siyo raadiyaa waa qofka habar gidarta dhalada dhaqanka lagu yaqaano marka haddaan nin habar gidar dhalad tahay maalin walba inaa qof isku dhigdhigantiin Idrisow oo qof cidda isku dhigantiin walaalow kuma fiicno waxayna sii xoojinay waxyaalaha hadda dadka ay kugu dhaliilayaan ay ku leeyihiin ninkaas waa nin habar gidar u dheelo ka toobadkeeno iska dhaaf haddaadan ahayn nin habar gidar dhaladana walaalow dadka ka dhalatay ciddii doonta ha noqoto
wallahi laba dhibay qabaan. Dhibka koowaad ay qabaan waxaa waaye wiilkoodii oo joogo oo aanan sheeganaynin oo maalin walba ka cararaay dhibay ku qabaan. Ileen Soomaalidu waxay dhahdaa fartaada halaawda filaq kaagama harto. qof maanta qofkiisa ka sii jeedo ku farxi lahaa ma jiro. taas oo dhibka koowaad ay qabaan. dhibka labaad ay qabaan waxaa waaye maalin walba iyadoo lagugu sheekeysanayo oo meelaha lagugu dhegan yahay iyadana dhibay qabaan. oo qofkii la dhashay lagu dhegan yahay inuu arka ama daawada jecel ma jiro. labadaas dhibay qabaan walaalo dadka isaga noqo. wallahi haddii dadka dhan ay sawirada soo saartaan oo ay soori ku dareemaan qabiil aada ka dhalan way ku dheelisiin karaan laakiin kuma dhali karaan. oo waxaad ogaataa inaysan jirin qabiil ka laan dheereysane walaalo dadka isaga noqo. Daahiro adigana midaan ku leeyahay walaalkayo haddaa Idris isku haysatiin inuu habargidir dhalad yahay iyo inuu habargidir u dheelata isku haysatiin walaalo adaa laba marka qaldan. marka koowaad waxa uga qaldan tahay adiga cidda aa ka dhalatay qofka u dheelo iyo qofka u dhashay isku si ma aha. isku sina qalbigooda looma ilaaliyo. cidda aa ka dhalatay qofka ka dhashay intaa dhahday inteeda kaloo ku dhahaa ama uga aamusaa. laakiin